ninkii qalin beesalka sameeyey maalintuu dhameeyey wuxuu qalin beesalow qalin beesalkii buu la hadlayaa wuxuu waan ku sameeyey waan ku dhammaystiray maantana dunida lagu diraya markaad adduunka ilaahay dhex gashay aad tagto waxaad la kulmi doontaa dadka qaarkood waxay kugu qori doonaan xurufley soo lama yiraahdo bahasheere lagu qoro qaarna waxay kugu qori doonaan mindi qaar waxay kugu qori doonaan makiinad qaar baan intaaba haysan oo dhagax kugu qori doona qaar baa ilkaa kugu qoran doona wuxuu yidhi dadkaasoo dhami midna cadow kuma aha midna kuma jecla kan xurufleyda kugu qoraya sideena macaan kugu qoraya saaxiibtinimo iyo kama aha kalgacayl kan dhagaxa kula dhacayna cadowtinimo kama aha labada midna kuma jecla midna kuma necba laakiin dhammaantood waxay u socdaan waxa gudahaaga ku jira ee dhuuxa oo inay la soo baxaan ama xurufleyda kugu qoro ama mindiha kugu qoro ama makiinada kugu qoro ama ilkaha kugu qoro ama dhagaxa kugu qoro mid waliba wuxuu u socdaa kaliya maxay inuu dhuuxaaga la soo baxo midna ha u cadhoon midna ha u farxin mid walba guntaada wixii ku jira uun sii taladaasi waxay la macno tahay aabbaha iyo hooyada iyo macallinkaaga iyo waalidkaaga iyo dadka kale ee kugu hareeraysan iyo maamulkaagu waxa laga yaabaa inay ku canaantaan waxa laga yaabaa inay kugu qayliyaan hooyada maanta oo dhan intii aad subaxnimada soo baxaysay markay kugu qaylinaysay macnaheedu ma way ku nacabtayba wardee jawaaba miyay ku nacabtay hooyada markay kugu qaylinayso aabbaha markuu kugu qaylinayo miyuu ku nacab yahay muxuu doonayaa wuxuu rabaa ruuxdaadu inuu dhiso oo aad noqoto berrite kii bedeli lahaa ee noloshan macno u samayn lahaa marka taladaynu qalin beesalka ka qaadanayna waxa weeyaan ha u qaadan cid kastoo ku canaanataa inay ku necab tahay ha u qaadan cid kastoo ku ammaantaana inay ku jeceshahay macnaheedu waa maxay waar qof walowba waxa loo socdaa waa guntaada waxa ku jira iyo ruuxdaada in la soo saaro maalin walba maxaa imtixaan aad u gashaa waa in maskaxdaada la koriyo maalin walba maxaa lagu canaantaa maalin walba maxaa albaabka lagaaga celiyaa maalin walba maxaa midicda lagu istaajiyaa maalin walba muxuu odayga ku aabbahay kugu qayliyaa maalin walba islaamtu maxay guriga uga dhex qaylisaa waxani waa diyaarin maalin maalmaha ka mida ayaa waxaa la rabaa inaad noqoto qof mas-uula oo meel iska soo saara oo bani aadamka markaa ka dhex tilmaanaada war taladaa koowaad ma garateen